magacaygu waa Cabdullaahi Xirsi Cabdulqaadir aqoon ahaan ama cilmi ahaan waxaan bartay culumta computerka ama computer science dhiganaha aan sameeyay ama buugaan qoray magaciisana waxa la yiraahdaa fahanka wadaniyada runtii waxaan bilaabay fikradan ay ugu dhalatay inaan bilaabo horaantii sanadkii 2017 maalinaan madal iskugu nimid dhalinyaro aqoon-yahanaa su'aasha ugu badan oo la isweydiinayna ay ahayd sidee dalka xal loogu heli karaa maanta meesha uu joogo meel ka duwan maaragtay loo gaarsiin karaa taasa waxay aniga ka Cabdullaahi ahaan iga dhalatay ama fikradda aan ka helay in dalku uu maaragtay meesha kaliya uu ka kicila yahay ay tahay wadaniyad la'aanta iyo bulshadii Soomaaliyeed oo aan fahansanayn macnihii wadaniyada ama aan ku dhaqmayn marka meeshaas aan ka soo bilaabay ilaahay fadligii iyo karaamadii sanadkii 2018 sanadkan ku guda jiro bishiisii koobaad 19keedii baan waxaan ku soo bandhigay suuragashay inaan ku soo bandhigo magaalada Galkacyo ujeedada buugan iyo macnaha waxaan baarsan yahay waxay ahayd in bulshada Soomaaliyeed ay gaadho risaaladan xambaarsanahay taasoo ah in bulshadu ay noqdaan dad wadaniina bulshadu dhamaantood muwaadiniin weeyaan dalka xuquuq bay ku leeyihiin ayaguna xaq buu ku leeyahay laakiin in la helo bulsho dhamaantood lama wada heli karo wadaniya laakiin bal bulsho maaragtay wadaniyiin oo ka bedeli kara wax weeyaan dalka wax ka bedeli kara waxna ku soo kordhin kara aaminsanna in dalkani ayagu leeyihiin oo dad u yihiin in la helo bay muhiimadeeda ugu badan iyo qaayadan buugan u qoray ahayd waxaan ugu talagalnay ka faa'iideystaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed runtii ma aanan kala soocin sababtoo ah waxaan muhiimadeedu ahayd kii maaragtay hore u hayay ama yaqaanay macnaha iyo maaragtay qiimaha wadaniyadana inay u noqoto xasuusin iyo maaragtay tadkiro maaragtay wax ku xasuusto oo boorka iskaga jafo kii aan aqoon maaragtay isho fudo maaragtay markaas cilmi baaris badan iyo sameeyo ama raadiyo ama xog badan raadiyo macluumaad badan raadiyo laakiin uu aamino qof waliba in dalkan waa isaga sugayo mas'uuliyad gaar ahaaneedna ay qof waliba ka saaran tahay oo maaragtay muwaadina qof walibana uu aamino in dalkan isagu leeyahay isagana sugayo waxa weyn bulshooyinka horumarayna iyo dalalka horumarayna ay ku kala horumareen kaliya dadkooda waxa weeyaan wax kale ku kala horumarin marka muhiimadeeda qaayadan ka duulayay taasi ahayd wallahi emotionally dareenkayga ay gudhiishaliyay runtii qofku markuu qof wax bartay yahay oo in badan uu jaanibiyo badan buu wax ka eegaya dareenkayga iyo maskaxdayda iyo maaragtay ba in badan igu soo celceliyay su'aalo wax weeyaan la halmaala bal horta wadankan yaa iskale bulshadii waxaad soo maraysaa wado masaajid aada ama jidka weyn oo halbowlaha ummadda waxaad arkaysaa asagoo qashin lagu shubayo hooyo Soomaaliyeed ay xal ku shubayso wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro qashin ku shubayo jidkii uu dhalooyin iyo wax la mid oo la halmaalo deegaanka iyo dadka aadanaha iyo noolaha kale ba wax yeelayn kara lagu sameeyo taas baa waxa igu dhalisay inaan bal aan daraasad sameeyo daraasadii cilmi baaris waxa iga soo baxday inaan dhigana ka sameeyo wax weey risaaladeedana aan gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed inta ka gaarsiin karayo wallahi nuqulada buuga ku jiray way badan yihiin laakiin nuquladan isleeyahay way maartay bulshada intifaac u leeyihiin horta macnaheedu wadaniyada in dadku ay fahmaan maxay tahay wadaniyadu muwaadinka iyo wadaniga farqiga u dhaxeeya la dadku dhan sida xaqiiqda waa muwaadiniin qof walba Soomaaliyeed oo muwaadin laakiin muwaadinka iyo wadanigu farqiyad baa u dhaxaysa qofkuna afcaal iyo sifooyin buu ku noqdaa wadani qofkana xuquuq buu muwaadin ku noqdaa waxa kamid ah iyaduna aafada qabyaalada oo wax weeyaan hantaaqada iyo hadiimada qabyaalada oo in badan bulshada Soomaaliyeed wax saameyn ku leh waxa kamid ah iyaduna faa'iidooyinka ay leedahay wadaniyadu toobigadu aad bay u tiro badan yihiin laakiin intooda ugu muhiimsan waa inta wallahi caqabaduhu way badnaayeen oo mar walba oo wax qoraysid caqabado aadan maaragtay qof ku soo dhaweeyo maaragtay aragtidaada ku qanca bulshada Soomaaliyeed waxa lagu tilmaamay in badan yihiin ummad hadal ma badnayn ka Cabdullaahi ahaan caqabadaha ay qabsaday laakiin way jiraan wax waliba oo la qabanayo caqabado way leeyihiin waliba kuwa tiro badan ilaahay galadiis meeshan u socday ujeedkan u socday baa ka weynaa caqabadaha ay qabsaday marka ma badareemin ba waxa weeyaan mar walba caqabad ay qabsatay waxaan ku sii dhiiranayay inaan waxa weeyaan juhdigan bixinayay dadaalkan bixinayay labalaabka aan bixiyo marka mar walba caqabad ay qabsato waxa ii kordhiyay dareen iyo kalsooni iyo dadaal baa ii kordhiyay buugani waa buug igu horeeyay buug in la qoray maartay muhiimad badan ma sameeyso laakiin in laga qoro wax xaqiiqo ah oo waaqici ah oo jira oo ummaduna u baahan tahay intifaac leh
waxa weeyaan adigana waxa weeyaan aad ka heli karaysid de bulshada risaaladaadii in badan ay wax ku gaaraan ama ay in badan ay wax ku qaataan baa muhiimad u tahay wallaahi qof waliba oo dhalinyaro ah oo ama horey wax u qoray ama damacsan inuu hadeer wax qoro waxaan u soo jeedin lahaa inay bulshada u sameeyaan ama u qoraan wax bulshada intifaac u leh oo bulshada ma garanaysaa ku intifaaci karayso in wax la qoraay jaanib markii laga eego way adag tahay oo wax sacab ah oo aad u adag weeyaan markii dhan kale laga eegaana de in wax la qoraay muhiimad badan ma samayso laakiin wax waaqic ku salaysan oo xaqiiqi oo bulshada u baahan tahay in la qoraaba wax uga baahi badan tahay wax bulshada u baahi badan aysan u qabin marka qof waliba oo dhalinyaro ah oo ama horey wax u qoray ama rabo inuu hadeer wax qoro waxaan kula dardaarmayaa inay u sameeyaan bulshada ama u qoraan wax bulshada intifaac u leh dhan walba nolosha kamid ah